السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الصوماليات الدين دعالي الميل والباد كجوكتان وأسعد علي سياسة ضدبن ويدين لسود وهذا ولا عليها أبي ونكسن سولو هذا ولا عليها سولو هذا سولو هذا سولو هذا ولا عليها غيبي إسقارسي وأسعد علي سياسة ضدبن سولو هذا سولو هذا وحان إذن هو ذاقينا قيبة بدن ميلا بدن بان لينا ميديا هنو أنو جيدنا داد أو داني والبا ميشو كهدليا لكن waxa uu khatarsan kuwa dalkii inay joogaan anu maleynayo oo magacyo kale ku adeeganayo oo wax dhibaya laakiin waxa rabnaa inaan cadeyno holaha ka socda Hirshabeelle iyo aageeda ayaa rabnaa inaanu fartaagano waanu arkaynaa odayaashii aan shalay dhahaynay in mataqaanaa ay yani meeshoodii ay ka dhaqaaqin ay haddana ku hambalyeynayaan laakiinse wax badan baa ku jira meesha halkaa wax baan ka tusirnaa qaybiye walaalayaal isgaarsiya سولو هذا ولا سولو هذا وان هذا qaybiye isgaarsiya waan hadlaya waan bilaabaya qaybiye isgaarsiya waan hadlaya zeker beyti okay qaybiye wala qaybiya waa hal mar baan sii deynayaa warkaygu waa kooban yahay waa digniin waxaan dhiman rabo waxaan rabaa inaan iraahdo dhinac kalena hambalyo laakiin waxa weeye hal bacaad lagu lisay waata ugu khatarsan weeye intaasoo howlgal ah in haddana markii gadoom lasoo dhaho jugjugmahagi joog ee u ekaato waa ayaan darro ayaan u arkaa sawir noocaas oo kale ayaa noo sawirmaya marka waxaan rabnaa halkaa inaan la wadaagno walaalaha ee naftooda horay ee alla ilaahay dadna uga dhintay iyaguna ay hool qabteen howshaasi alla ilaahay si loogu talagalay inay noqotaan loo baahan yahay dhamaystirkeedana in la yeeshaa loo baahan yahay raatitirkeeda in la yeeshaa loo baahan yahay laakiin waxa weeye odayaashii shalay toole yaa la isticmaalayay in sidooda lagu magangeliyo waxa weeye wax badan baa ku hoos jira halkaas inaan faraha geliyaan rabaa reerkii Abgaal Cusmaan odayaashoodii oo shalay toolana hadlayay oo handadayay oo cagajugleynayay anagu sheegnay in qori gadaal loogu hayo waa dhab iyagiiba hadda cadeynaya laakiin haddana wax badan bay qarinayaan waxaa la rabaa in halkaas aan u tilmaamo dowladda
iyo dhalinyarada naftood hurayaasha ah goobahaas iyo meelaha odayaasha iyo kuwii la midaba ay ku haleeleen wax badan ayaa ka daboolan aan arkaya waayo haddii kale waanu arki lahayn media waxa ay na tusi karaan wayna tuseen laakiin wax badan ayna na tusina ayaa jira inaan anagu inta farta ugu fiiqno aanu haddana aan la aragna ayaan rabnaa halkaa ayaan rabaa inaan ciidamada weli agaga ku jira iyo odayaasha agti ka jooga inay hooshooda ka dhammaystirtaan taas ayaan rabaa inaan dhiibto marka walaalayaal hal qayb yaal isgaarsiyo dhinaca kalena waxaan rabnaa inaan la hadalno walaalaha Soomaaliyeed iyo kuwa dalaalida ka ah media raadiyaal samaystay oo Saddam Hussein mid isku tilmaamay iyo mid tiktok dhahay iyo meelaha beenti iyo mataqaanaa rakhista kala wada waxa weeye wax shaqayn doona maaha walaalayaal dalka kani in badan buu soo cakirmay ummadan Soomaaliyeedna inay nabad iyo dawladnimo iyo mataqaanaa ay nooga cadday noogama cadda anaga in hebel la dhaha iyo kan hebel waaye iyo wuxuu gatay petrolkii iyo wuxuu war dacwadii hore aanu weli aan rabnaa inaanu meel marino middaad sheegaysa muxuu yahay tii hore ayaa petrol soota mar hore la kala qaatay soota been lagu kala gatay maaha oo aanu ognahay nimankii lacagaha kala qaatay wasiirkii ugu dambeeyay petrol sookii afka kala taagtaagay aniga maaha iyo kana seexidhahay maaha marka nimanka wararka rakhiiska la soo galaya meesha waanu naqaanaa meesha warka ka imaanayo laakiin waxaanu niri waxa weeye hadda waxa socda xeerkii nimankan iyagu yiri annaguna dawlad kalena ayaa hooshoodii socota waa laga soo gadoomayaayo waxa imaanaya xeerkii nimankii kriminaalada ahaa wax diray waxa imaanaya nimankii dhaqaalaha sida khaldamo cunay marka wax walba marka degdegina marka ummadda waxaan u sheegaynaa mala awaal waa dhamaaday walaalayaal waxay nooga caddahay dawlad iyo awood dawlad daacad u ah waxa weeye geedna aan ku gambanaynin xeerkii isticmaalaya ama shariicadii islaamka ha ku dabakhnaato ama ha ku dabakhnaato midda iyadu markaa anagoo ahaan aan Soomaaliya samaysanay laakiinse walaalayaal xeerkii sidiisa ahaa inuu dhaco ayaanu ku hanqaweynahay waxaan u baahannahay dawladnimadii saxda ahayd inay timaadaan ku hanqaweynahay waxaanu ku hanqaweynahay in culayska dawladnimada aanu rabno dadka ku ah inaan alleelehe hiliyaho intaan u wada yeelano iska dulqaadno dawladda tani waxay maanta wadaa tii ugu khatarsaneed wadinkaa maqlaya adeeraday shalayna waan idin sheegay waxaan lahaa odayaasha adeeraday ma jeedin kama aha inay jaceyl ka tahay qoryaa gadaal looga hayaa naagtiisa xitaa waa lagu haystaa aydiiri waa xorayseen hadda fiiri waa intaan raadinayna waa intaa laakiin odayaashaasaan rabnaa haddana inaanu niraahno may adeer diilki nimanku kaama tegi laheene waxay kaaga tegeenay qabaane arrintii aan ka dhammaysanayaa caawo وانا تفرين عنو دريو عيدا مدى يمتقانا وقانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك الصوماليين الدويدا ندعال لدي الميلو الباد كودي جوكتانين والسادة ليه سياسة ضدبان وإذن الله بين وناكسن no problems أنا وفرين تيدا حالكا سانكا قد بنيا بإذن الله الكريم نمانكو يقو أنيقا أخباره هيقا اللي إلهي إلو داقا وحنا حقيقة إيقا لتابتا أيان حالكا أنو مرول بابا أيان أسو تاقناهي كواسو يقو اللي إلهي barta aan markaa ka hadlayay iyo dadka ay khuseysana si wanaagsan u gaadha ya anigu suuqa wax ma kala gadanayo lacag kuna aruursanayay dadka aan danta ka leeyahay ayaan u furtay meesha nimanka iga gaarsiinay farintana waa nimanka igu xiran weeya ama ha seexda ama mashquul ahaado hadhow toole waa u tagtay ninkii odayga ahaa wayna dhaxay saarantii soo dhawaada walaalayaal waxaan wada arkaynaa dhammaanteennaba in miidiyaha mataqaanaa been abuur iyo mataqaanaa ku yiri aniga waxa la Saddam Hussein يا أو أنتوا سو استاجوا ورن إنه شيء جاي عمل هذا وانا قانا عد كيسان قانا قف كويه هن قانا وانا قانا ميلو كهذا لا يدت كيشان تسنة وانا قانا إنه استدوري كروس كويستا لكن وحكم دي هي على ده هذا الشقينية مركز نوحها على ده بروباغندا أوضة دولة أيوها ما فهمتي يا وويل كسير دق دغني ما ذكر هذه يا ود يوم تقال إنه متقانا عذكر أو متقانا ونقض ولا يقانا قفك السجاعة سادام حسين هذا كسو قلا هوشي سكوتا متكلم جرى تك وحيا ما قال وكل سوء أديجنا يوي مركا وحن ربا إن الشعب كصوماليين وقدوا وحيابوين بدنو كوسا ساجرة هذا اللذو وهذا اللي أغلي جودو وسمي يكوي يو أديكسر يو منجابا وولي أمدو إني برتي وتاجينهين وهيستا أمدو ويبرارو سنتا إنا نرهنا رنا شعب كصوماليين dibad iyo gudaba way baraarugsan kii shalay toole beent loo sheegay ee nabadii nolol xitaa beent u sheegtay maanta wuu baraarugsan yahay dareenna waa ku jiriya marka waxa weeye kuwa iyagu u go'doomay
oo keligii cunayaasha ahaa kuwa iyagu bannaystay oo qaab qabiileed dowladnimadana ku yimiday kuna adeegtay dugaanna ka dhigtay waa kuwa reebreebayaasha ah ee saacadan adeega iyo dadka yaryarka ee dhallinyaradana adeegsanaya taasna dowladda iyo qolooyinka sirdoonka u taallaa raadadkaasi u raacayaan laakiin dhammaan shacabka waxaan u sheegaynaa ay alleylehe ay baahi u hayso dalkiisan inay xorowdo oo alleylehe culays baa lagu hayaa waa wada arkaysaane waxaa culayskaa adag ee nahayaa waa waxa nagu jira laakiin kan ila joogay ii eg aniga i bannaystay aniga xoolahaygii waxaygii waa kaa caddaynaya odaygii adeerkii ahaa wuxuu ku yidhi ilaa ii raagaceele ilaa iyo inta u dhaxaysa ninkii zakawaadkii iyo lacag ka qaadayaana yidhi was caddeey yaa la adeegsanaya waan idiin sheegay waxaa idin waxaa la adeegsanaa ninkii reeraha iyagii okay waxaan rabaa marka walaalayaal shacabka soomaaliyeedow dowladdan waa inaanu ku mahadinaa kuna shukrinaa dad badan ogaada oo maanta miyiga ah ayay xoraysay oo uu ka mid yahay odayga adeerkay aad maqlaysaan ee nabadoonka ah laakiin odayga adeerkay waxaan rabaa ciidamada agta ka taagan waxaan rabnaa odayga adeerkay weli daacad maaha waa inuu daacadnimada caddeeyaa iyo hubka meesha la geliyey ee lagu duugay inuu sheego weeye waa in ballanta ay dhigteen uu caddeeyaa inaan iraahdo ayaan rabaa wuu hadlay waa maqlayaa hadalkaasi maya waa sidii loogu talagalay tii annaga laf iyo dhiig iyo wax walba naga dhexaysay in oo ahaan loola sheekaysto waay sida iyagu ula sheekaysteen waa u caddahay wax walba ha loo akhriyo ninkaas isaga ah ee nabadoonka ahaa ee xoolaha aroorin jiray walaalayaal huba badan ayuu meel ku ogyahay oo kunta fadhida ilaalinaysana isaga weeyaan iyo reeraha isaga ku wada aadan ee weli ka dambeeya waxaan rabnaa dowladda askarta agta joogta ee ku qabiilka odayga adeerkaya anigaba adeer u yahay wuxuu doonaba hada nin abgaalmaya heeya laakiin ciidanka u sheegaya walaal haddii uu yahay xitaa kii ku dhowaa odaygaasi annagu kuma dhahoyna qashi iyo qala waxaan leenahay odaygaasi siduu u soo xerooday waaye laakiin xerada ha soo dhammaystiro hubka iyo aaladaha ee meesha loogu duugay ha keeno dhalinyarada yaryarka ee xarkaha ugu xiranna ha sheego oo xarkaha ha ka sii daayo بركي وكوا بري قدوم على موجودة نجد دولة نبدي يا ربنا والدقائق يسميل كلا أدم والركبين حتى قادسي عدي أبقى ولي والله ياوي ولي ماذا حلقة يستوي نبضونكو وكل شيء يجوا ولا شقينا أدي ما دقائق يجي واي كلا دورتا مركوا حاربنا الدولة ده هوش لما يسترى يين نغني وتا إرجي من كسر لعيا هوشا ينغنين هالبعال غلسي وقرمتين وأردن وأركينا قابك عيدا كحتا أنا أهان مركا أن كالو أنا وحبة فرفرينين يعني صف بلارن يد وحوي وحد ستان بلاي وحلي هي درومو أيال اللي أودو دي لي دولتي إن أودتك لغوير أو تركيدي ما قام أو متقنا وأدي جنيه ماشى أو فديه هذا ريالو iyadoo la garaacin baaban ilii sheegi karaa meelaha ay kala joogaan ciidanka qaabka u dagaalama noocaasa waxa waaye iska meel wada aad maaha waxa la rabaa ciidanku nimankan meeshaanay ka tageen meel kale aadooyaan meeshaanay ka baxeen inta lagu galooya xaafadiya lagu galo waa soo hor istaagay baa dawaaka adeerkay hadaa u jeedid intii kale ee isaga ku ciidaha oo dhan waa joogan nin walba naagiisi saddex iyo dhex jooga ma bixin hubkiin dhow iyaga haysta iyaga ku fadhiya waa ku fadhiyaan marka waxa way waa ka dhaqaaqdeen dhaqaaqaysaan waa rakiban yihiin arrintaasi hadalkayga dhadhamiya waxaan leeyahay ciidamada ee alleylehe walaalahoodna ay meeshaasi naftoodu ku go'een oo caruur iyo naagba ha ka tage mishinkuna uu ahaa in aanu culayskan iska qaadnaan rabnaa walaalayaalow hadduu kan askarigee dhintay iyo odaygan ee shalay toole shabaabka ah ee hadda aa qabatay kee kula qiimo weyn saacaddan la joogo waxaa u dhintay nin dhahaya nimankan waana dhibayaan nimankan adeerkay hadduu soo haray adeerkay wuxuu ku dhooyaa nimanku waa dhib badnaayeen waana qasbaayeen uu kuu sheegoya marka maxaa lagaa rabaa waxa waaye askarigiiyo waxaa lagaa rabaa in aad gubtid xididka geedka mar dambe inuu baxbaxa maaha waa in la gubaa see lagu gubaa adeerkayaa kuu sheegaya
adeerkay weli daacad ma sheegayo adeerkay wuxuu wada hayaa isaga haddaa hesheen intii isaga ku laf ahayd oo dhan ee u rakibnaa waa u rakibay nin walbana waa u hubaysan siduu ugu hubaysnaa laakiinse waxa waaye qoloftii kore ma haysto waxba ma haysto laakiin haa dhulkay leeyihiin carrigay leeyihiin deegaankay leeyihiin meeshay geliyeen maxaad ka taqaanaa askari kii ee aqoon lahaana waxa weeye adeerkay wuu ka leexanayaa wuu ka jiirjiiraynayaa sheekadu halkaa maaha sheekadu ku xisaabtam askari kii adiga ee kolligaaga ahaa kii adiga kula soo xiiqay xabadda ku dhacday dhintay yaa saaxiib mishinkii uu ninkaa u dhintay dhammaystirkeedii adaa lagaa rabaa maaha inaad ninkii isaga ahaa ee uu kaa u dhintay in aad haddana isagii walaalaysid kii kalena dhinto waa xaqdarro wey askarta waxaan u caddaynaynaa waa igu cid ma jirta meeshaan waxa waaye ha ahaado si nabadeed buu ku yimiday wadhaqaaqa maa yiri ani carrigan ka dhashay intayn aadaa ariga iska baxu yiri meel aadaa male aniga ahaa runtiis waay meel aadaa male walba waa madaxdeegii hadda wuxuu idhooyaa marka aniga qoriga gadaal leeyahay wasaan sheegayni mugta waa ogolahay intaas hadda adeero waxaan ku sii xoreeyay sheeg hubka meelahay kala geliyeen iyo nagu soo noqonin ballantii aad dhigateen miiska noo saar oo waxa waaye wiilasha ee aad meelaha ku kala haysidna keen waa u baahannahay nimanka ciidan uma hayn nimanka annagaa hadda u baahan oo howlgelinayna iyagana intana ka nadiifinayna ilaa intaa laga garaace annaga tii runtaan ku shubaynaa shub fiican oo anfac leh ayaanu ku shubaynaa awooddiisiina soo lama isticmaalaynin dee iminka cidihiisa si fiican u xoreeyo waa sii isticmaalaynaa weli meelay joogaane meel halkaa ceelbuur baa weli la taagan yahay halkaa iyo xeebiyi waxaa laiskugu tegey dhul baa laiskugu tegey waxaa laiskugu tegayaa gaan iyo xarar dheere iyo xagga marka waxa weeye aan ismaqalno waxaan rabaa ciidankow raadkii aad martay ha iska tegin waaba u jeedaaba waaba kuu sheegay waaba meelaha u soconna malay dheheen waa joogaan waana isla ciddii waaye waa iyagii waaye waa kuwii baadayey maca askartiisa maca isaga maca kulli waa ciddii anaana cidahayga baaduu ku yiri ciidankiisii faruu ugu jiraa marka waxa waaye iska gudub maaha waa in la yidhaahdaa caaway oo iyaa ciidan ahaa oo dumarka imisaa aa labisnaa imisaa qoryaha wata imisaa dagaalamay aaw qoryihii inteed geliseen aaway waxaa miinooyin balaayo iyo adduunyadan iyo fuustooyinkaa qarxinayseen dhulka meelahaad geliseen sheeg adeer oo keedka ah haa dowladda waxa weeye askartan u sheegaa ciidankan la hadlaa ee yaacaya adaa isdhabarjabinaya adaa islaynaya adiga eeg naxariisay kaa tahay ee bowgee waa adeerkee waa odayga maya been ku cunaa wallaahi bilaahi tallaahi miin ku sii dhigaa waa sii gudubtaa soo noqonaysa isagaa ku xariqaya waa in si fiican nimankaas laga rujiyaa dhulku waa dhul ballaaran wiilasha iyo niman waa in horta la wataaba aan dhihi rabaa anu waaba in la wato weeye hubkii keena dhaha hubkaa soo saaraan kadibna wiilasha wada oo u sii akhriya qur-aankii saxda ahaa dhiigoodana horey u hureynayo walaalahood ku leynayeen si khaladee hadda ka horgee kuwii iyagu khiyaanay gadaalsi ha uga tegin ciidamada intaan kula talinaya waa intaa wiilashii dhallinyaradaad meel walba ugu tagtaan naftooda baaqi hadday ku yihiin gadaal ha uga tegin ka hadalsii keenda qorigaagii iyo waxaagii qalabkaagii xiradhe iyo hor socodhe soco jidkay mareen sheeg wariyaay hor soco iska dhici dadka cidahaaga xoreyna soo bax baaqi ay tahay waa lagu khaldaada laakiin aniga waxa waaye waxaan ku leeyahay naftaadii ay baaqiyo xooggaaga waa anfaca yaa tiradan iskaga dheeli ma kaale cadowgii ku siray aan iska ka daba tagnay kii kula dhashayna aan ka soo ridnay halkaa weeye halka ee aad xidid gubowga aad alla ilaahay ka abuurteen laakiinse ciidanku waa tegay meesha waa xoreyna meesha kana odayga waa isdhiibay hay adeer waran hadda saanay heede waxaas maaha adeer waran maaha adeer awey weynal wubu ku sheegoyaaba maaliyadii uu meel ku ogyahay oo anaaba soo gurayo ku yiri wuxuu meel ku ogyahay xoolahay daaqayeen u yaqaanaa meesha ay ku daaqayaan iyo ninka ay qowsaarka ah hey hallo askartay waxaan idiri xoolahay cunayeen ciidanka ninka soo aruurinayay way
marka xooluhu ilaa iyo mataqaanaa ilaa iyo wuxuu imaanayay raagaceelle ilaa iyo runurgood mudhahay ninku waa nin waxa weeye intaasoo dhan ka kaabeynaya wey marka waxa waaye xoolihii al-shabaabna waa yaqaan qowsaaro badan iyo xoolo niman daba taagan oo al-shabaabna waa jiraan wuxuu dhan u yaqaanaa cariga meelaha ay mataqaanaa ay ku kala hayaan oo dhan u yaqaanaa marka ninkan hubkoodii iyo qalabkoodii iyo wixii ummaddan lagu addoonsanaya oo dhan ayuu yaqaanaa meelaha ay yaalliin marka adeerayaashay waxa weeye aniga maaha inaan lu goynayo adeerkay inaan nadiifiyaan rabaa tanaana ka mid ah waxaa ka mid ah jooji waxqariska jirrida ku hayso waayaan kaa saare lagu dili maa laakiin adiga ha isdilin hanana dilin annaga waay annaga waa soo duulaan tagnay culayska inaan adiga kaa qaadnaa rabnay dhashaada iyo carrigaaga haddaba iyadoo sidii ay tahay adigiiyo shalaytoole naftaadu oo naftayda bannaystay iyagoo oo gadaashaada taagnaa oo qori kaaga hayay walaale waxa weeye hadda annagaad nala joogtaa adeer abgaal cusmaan maanta ani abgaal carigaan iyaa la abgaal cusmaan iga leexo nimankaas iyay ahayn mataqaanaa maya iga leexo fikradda intay ka timid 114 meelay uga taalay tus aniga nin allahu akbar dhahay iyo nin masaajid ku jira hal dilo meel lagu leeyahay 114 iyo xadiiska nabiga laga soo dhax saaro marka maskaxda meel dheer xal loo aada masaajidkii ee alle oo alle la ogyahay dad lagaga dhex dukan waay marka waxa waaye waaba loo jeedaa inay yihiin dad mujrimiina gaalka ma yeeli karo ninka ilaahay nala caabudaya ee nabi ciise xigsaday waa meeshan ku kala duwanahay oo u qaatay inuu nabi ciise yani uu special laakiin anagu waxaanu leenahay yaa aadan baaba ka sii specialsan haddii ay tahay ma fahamtay ilaahay uma kala exda dadka ya aragtidoodu way moogtahay laakiin haddana eeg kaasi wallahi intuu yimaado inuuna masaajidku ugu weynin abadan ninkaa ee kiristaanka ee bahalka wata inta yimaada masaajidka soo galo maskaxdiisa ma siinayso inuu ummaddaa halaago waayo kitaabku wata kuma taalo waayo wuxuu rabaa nabadgelyo isaga naftiisii ayaa ilaahay baryay inuu nabadgelyo helo marka waxa waaye nimanku xitaa gaal eeg markaan leenahay gaalku walaalayaal nin diin leh gaal maaha nin diin leh wuxuu aaminsan yahay ilaahay iyo afkaar yaroo lagu kala duwan waa gaal waxaa la dhahaa ninaan diin aaminsanayn ninaan ilaahay caabudaynin nin diidan ilaahay wakaasaa ninka gaalka ummadda soomaaliyeed inaan wax fahansiina u baahannahay ummadda soomaaliyeed waa inaan yar fikirtaan nin caabud leh oo wax caabudaya ilaahay caabudaya afkaara ku kala duwaane gaal lama dhaho kaas gaal waxaa la dhahaa ninka ilaahay diidan ninka ilaahay waxaan uuna siiyey oo dhan diidan ninkaa waaye gaalku waana buux waa la joogaa inta waa maba aaminsanaba waxay aaminsan yihiin ma jiro wakaa gaalku marka shacabka soomaaliyeed oo faham baan ku leeyahay nimankan marka bal igu sheega marka kuwii ee kiristaanka ahay ee kaniisadda galaya ma yihiin maya ma dadilla waa kuwaas kuwani waa kuwa la soo adeejiyey oo magacii diintii nabigeennii subanaa calayhi salaatu wasalaam lagu khatimay 114 oo sideedii oo tii kalena laga soo qaadayo wax walbaba ay taariikhda hore tani ku qeexmayso oo loo wada jeedo walaalayaal niman bannaystay oo magaca intay isticmaaleen dadkii laynaya marka maaha niman diin wata maaha oka dhaqanka ay ku dhaqmayeen iyo ereyada ay isticmaalayaan isma garab imaanayo maayigi isma leeka maaha saxdii maaha saxdii marka waxaan rabnaa walaalaha iyaga askarta ah ee duulaanka tegey waxa weeye horta saraakiil badan baa ku jira ciidamada ee dagaalada gala niman waaweyn baa jira oo yaqaana khariidada lagu dagaalamo waxaa haysatiin daroonno meesha hubka lagu rakibayo kaamira xitaa way wadataa daroonka iska jir barkee marka lagu rakibayo waxay taqaanaa goobtii iyo meesha ku tuurisay dadkii arkaysa annagu waxaan dhihi lahayn ciidanka istaba yaacaya in la yar kala qaadaan jecelnahay
ciidanka meeshaas saf ballaaran macnaha waxa weeye xaaqinki baa ballaaranaya hadda halkan aad xaaqaysaa dhinacan ay siigadii u baxaysaa dee halkan haddana u soco halkan ay kasii dhaqaaqaysaa jug maaga joog waaye adaa daalay gadaala u loobanay lemoos iyo babaay iyo muufa barate maas qaloon iyo waxa ka socday ama hilib yaroo la shiisho ya iyo waad u soo ordee babaygii iyo malaydii aryaa iday howshaan ha la dhammaystiro qoryaha ay qariyeen cidda ha laga soo saaro cidda maskaxdooda in la dhaqo waaye sida loo dhaqay in dib qashinka looga saaro waaye oo dhulkooda udgoon kale ee lagu addoonsaday ee xooloodii looga xalaalaystay ee lagu dhaxbaadayo in la fahansiiyo ujeedaday ka lahaayeen dadkan in la fahansiiyaan rabaa marka waxa weeye ciidankaas iyaga ah waa in hub dhigi ah samaysaan waa in hubkii dhulka laga saaraa idinka hoshiino kadibna dadkaas ee maskaxda nadiifinaya inay soo galaan cariga waaye oo cidda loo tago waaye oo xaqiiqda loo sheego oo jid loo jiheeyo dadka siday wax u raadsanayaan si khaladana loo baro qori wax ku raadsanoo nin walba hadda qori amiir wax al-shabaab aan noqonaya amiir aniga أقول أنا قام مسح كنا قناه قري وكا وحوي أرنتان إن دي بلوسو عليوه أو مدة حركي لبرا حركي وقبتاني والبا دتكي إن هول أو دريق هول أي جلان دولكوا برواقوي دتكو بدأ ميقانين دحلة إيه أنت قول حيسة يا أنفع اللحية لميقانين دتكية ها لكن قالوا على السعودية وأنا مش يقدروا الوقار سنة مرك ولا ريال وحالمنا الدولة قيبها قابل سن تدك إيش أمدن دباتوينك لو قاضي أدر كيسان الشلي أوضي الشلي المغلسي وأوضي قالك شلي ني من كيلا واي كذا دارني واي أدنا وكان سانو إلى ورمويا مركو حالمنا الدولة إني حقا شقيسيسو قيبها وإن تدك لوسي دا عيدا ككلية ما كوي قابل سنة إني أمدن أي متغانا أي دوغو تستو يا orientation usameeya oo kuwii shaqa abuurka dadkii tusi lahaa dhulkooda say wax u kala waa nimayo dadka loo galaday dadka hool in loo yeelo way hadii kale waa loo imaanaya waa lagu hool baa loo yeelanaya dawladday waxa way dadka hool u yeelo al-shabaab qoryo u dhiibtay xitaa inuu kulay marka adigana xaraadinay marka waa in dadkan si degdeg ah ma ahayna hool qabateen qalal laga soo yaacay waa jugjug ma hin joog marka waxaan rabaa halkaas in askartu hoosha qabateen barta aad ku qabateen iyo deegaanka wali la baadho laga soo saaro la isku waco 40 xabaad meelaha keenaysid ma war dhalinyarada oo dhan iyo gabdhihii dhalinyarada oo dhan way kuwa askarta dhigacabka tan qarax lagu diyaariyay waa iyadu way waxaas dhan xaafadiina laga soo aruuray waay markaas waxa arki doonta hal nin oo saddex naag iska leeyahay wallahi inaan been sheegin haday baaraan wallahi inaan been sheegin wallahi warabbul kaaba waxa leeyahay ninka ma hata taagan ya saddex dumar iyo afar dumar ayay meeshkooda leeyihiin baad baan lagu wada noolyahay waxa waa yala bada ki isaga la dhashay deegaankii baa la baadaya waa loo shabaabobay in uu xagga lacag raadi xoolo ka soo qaad كو كقاضي حول لك سعرني وعلي وحلقة قاضي جيل لو تدخل العق ما هي يعني يا أما تعرف العق لو كل شبه ما هي السوق وحكوا لك ما هي نكو حوله هي وكقاضي يسوق مخلنيو وحسوق يحلقة حوله يدلنا يعني يمركز وهدنا حوله ينتو يرفيريو ودوحوا وحكسوا بدشنا ده السوق تو جيل لهذا يجيب أبوي بده تي حبدي ولا بدي حبو سنة وبريسكي لوركي راي هاروركا ها وكسو يبسلها أما محل إرادة قال لي دي يا ولا ريالو يجي باك قادنا يا هارو عني رايو الماء يرور يمنا متقا نجيلي وحدكتين وكرر نقضب ما بنقولها يا الله إيمانا يابا انت عصو عيدا وسبستنكو إسلا يجنبو ويلا شودين وعروسين حلودي أنت دني يقوم بكسو قاضيان كسو بعدهم بوليه البنا وقلايا دتك حلودي لا ينولي يلا يلي غيره دي بولا يلي وواحد مسكحدا اللي جحدي قضياش أبقال إيه ويلا شو يدو مركينو أنت وحواي توري كلس وأمك واحد لو وضوح وحواي حبر كثير يبقى السكور جي وايد دولة دي سيستي أركن مركو على فايدة السنة
وأنما نوذا جيسن بان لقيت تبتني وأنا واركينا تاني حير باب لو مريو حير كاسي وحو ضرب هذا وحوي إن طريق لمرة لو باية يا حير باب الرعاية وأنا الدولة دورة أي أديك ستويان وأقول isaga ma kaliya kuwa kala jiray marka anagu hadda ma galgalayne geesigaasi waa la adeegsaday wiil yaro geesi buu ahaa laakiin waa la adeegsaday adeegiisii wakaas ciqaab u badulmatay nimankii anigu waxaan jeclaan lahaa isaga ma kaligii ma nimankii adeegsaday amarka siiyay ee yiri u istaag ninka oo saayel nimanka in la keenaa baan jeclaan anigu dawladuna waxay ahayd inay meeshaas sii fogaataa bay ahayd waxay ahayd inay tiraahdo wiilkan yaa amray yaa yiri ninkaas dariiqa soo maray u joogso waa ayo kaas naftiisa in la keenaa bay ahayd marka waxay doontaba ahaato anagu waxaan leenahay alxamdulilah dad badan naga maqan xeeraan u baahannahay wax badan ba way hagaagi doonaan dadka iyagu markay isku dayay inay maanta ka faa'iideystaan wanayo meel cidlaabad ku daaleysaan reerkan cirkiga dhulka taga waanu ognahay way wada ogyiin habar gidir wuxuu moog yahay malaha habar gidir waa soo jeediyaa cawiya maalin waanu ogyahay in loo dalleeyahay wuxuu ogyahay dhulka uu joogo iyo inta ee uu isagu ku abtirsadaba in la isku qaramsado wuxuu ogyahay in baqdin isaga laga baqanayo inaan loogu bareereynin marka maanta ninkii siraya habar gidir isaga u taala xiraaba la dhahaa barta ee xeebta aad arkaysid tani iyo jirib inta uu meel nin hawiya ama nin muduloodu degan yahay ninkaasi waxa waaye waa sad ayuu ku leeyahay waana degan yahay waana ku xisaabtamaya dhiiggiisa iyo dhacaankiisa ayaa yaala waa maqla marka waa sidee loo ciribtiraa si aan uga masaxno waxaan oo dhan meeshan marka abgaal iyo habar gidir iyo naga dulqaada ay taagan tahay meel kaloo aniga diin la ii sheeganay maartay al-shabaab meel kaloo taagan shii sheega calool buu dhex fadhiyaa waa la yaqaanaa meeshu fadhiyo reer oo mataqaanaa dee coolyahankiibuu ka yar eraday laakiin shiqaal baa dhulkaas u wada badnaa ya dhulkaas isagaa saakoo iyo meelahan iyo mataqaanaa shiqaal baa daadsan ya waxa weeye ilaa jiribtaan iyo ma fahantay iyo xoogayna aabbo waa laga helaya coolyahan waxbaa ma fahantay iyo gaaljacal ma fahantay walaalayaal halkaasaa la fadhiistay jaddiyaa la dhex fadhiyaa meel la weeraray ma laha waxa waaye waa saldhigoodii waaye baadooda waa u socotaa culays ma saarna laakiin barta loo baahan yahay waa meel uu degan yahay odaygii hiraab la dhihi jiray inkaarta meeshay ka socoto ummaddan ee saa indhaha ka siinaysa iyo gaal walbaba yaa oday hiraab nagu dhalay ay leeyihin intaa maanta hadday hiraabna fahmi waayaan iyagay u taalla aan leeyahay shantii sanana waa u sheegaynay waa nuurna hadda bale ma qabno waana is u jeedeen sida loo cuncunayo qajam waa u jeedeen meendhay qasha uga jira haddana weli waxa waaye waa u jeednaayo anigu ma lalabaye iyagu naftoodu waxa waaye dhexdoodii sacad iyo salalani waa ciyaar lala ciyaarayo waa ciyaar lala ciyaarayo mariidkii yaa weli dhex taagan kii ee gobolkaas loo dhiibtay liir saan rabna annaga noo yeer marka waxa weeye kaas inta uu joogo waxa weeye habar gidiir oo afartooda isku dhegan oo aan la dhex gelin oo faranti ah wallaahi bilaahi waa dheer tahay isaga keligii maaha kuwa badan oo saa loo carbiyo kuwa ugu khatarsan waa kuwa aan la arkin laakiin siyaasiyiintu way isyaqaaniin wayna isyaqaaniin kuwa habar gidiir inay midoobaan ka soo horjeeda ee dalaalka ka dhex ah ee alleelehe dhaqaala meesha ugu jirto ilaa hadday iyagu heshiiyaan shaa dambe la cabi maayo waxa weeye meelo badan bu wallaahi waxaa leeyahay banay marka waa in la iska qabtaa haddii kale waxa weeye meelo badan baa ay xirmayaan sababtay taa waxa weeye sheekadu waxay isku bedelaysaa carri raaba laaba iska saxna shinayra meel ku soo baxna anaga cunayna arrintaas camal laga ilaalinaya marka anagu nafteeda waxaan leenahay inaan halkaa la gaarina ma rabno ummadda Soomaaliyeed ya iyagaas isku dayay inay arrintaayna gaarsiiyaan marka aan fiiriyo sida ay wax hadda loo dhigay xitaa isagoo xasan sheekh fadhiyo oo uu madaxweyne yahay ayaan haddana adeerayaal dhageysta meequu joogaa imika shan terrible waa dhowr bilood weeyaan nimayow Puntland jarad baa laga hadlayay oo dhahay niyow tanaa ka dhagax horreysay maxaa taa hormariyay iyo su'aalooyin waa wax ku jira meesha weeyaan waa wax ku jira weey meesha laakiin haddana waxa weeye waa midda annaga aan alleelehe ilaa saacadan haddaanu nahay reerkii hawiye qofku doonaba ahaadee waxaa naga go'ooya
aniga han dambeey wax la yiraahdo ee ummadii Soomaaliyeed iga xanaaqsanay aan isku soo jiidjiida xarkaha soo qaba kan inta ku xir ka soo qaba marka waxa way adigii wuxuu ku leeyahay adigii Soomaaliya waa ila dhalatay adiga waa ii dambeynaysa uu leeyahay marka ninka daacadda ah ma loogu simeeyaa waa miya qolooyinka waxa kooda soo jiidjiidayo baa ka dambeeya haddana isaga una wallahi fursadii laakiin waa laga faa'iideystay waxa looga faa'iideystay iyagii waa ku sii kobcismeen reerkii uu ka dhashay iyo meeshuu ku abtirsanayay iyo nimankii alla ilaahay koo kala yimiday waxa ay dhibatay arrimaha aan anagu aan gadaal u haysano waaye maantana aan maxaa la dhahay sheega boorsamiinta ma laha waan u sii dhigaynaa dawladdan ee soo taagan anagu ma lihin kasad weynaada dadka anagu waxaan leenahay waa gobol weeye tanna gobolkeedii ha loo magacaabo Hirshabeelle si fiican xuquuqdeeda ha u qaadato ha madax bannaanaata sidee taas ka leedahay xeerka kaa u yaalla inuu inta yaallaa loo baahan yahay kaa mugga loo shubaya in loo shubaa loo baahan yahay walaalayaal taa ma arkayna ilaa imaka waana eeg dawladdana anagu aan rabno inay hore u socoto weeye waa dawladdana anagu rabno oon ummadda Soomaaliyeedna aan ka gadayno oon dhooyno tani haddayna gudubto mid kale imaan mayso waa dhab anigiyo saacadan dhahaya waa ninka kan ee aniga igu abtirsanaya deegaan ahaanna ilaa iyo futada dambe oo aabiyii ku dhashay ilaa iyo tan isagu ku dhashay ee uu taagan yahay inta u dhaxaysay xaafad Abgaal ama Hiraab walaalayaal wali wax ay la siman tahay Puntland ama koonfur ahaato ama ma jirto walaalayaal sida wada ogtiin shabeellada dhexe warshadaha ee ugu qiimaha badnaa baa yaalay warshadii sokorta ahaa anagoo arkaynay sii dhamaatay yaa kacaanka xitaa ma faantay halkaasuu de intuu seexiyey ayuu qaybtii ee mataqaanaa aalkulada ee samaynaysa raamtii yareediyo yaa iyo cagiin molaasiskiin wax laga keenayay meeshaan jilib walaalayaal waa wixii laga walway waa la gadayba kismaayaaba haamankii waaweynaa inta loo rakibtay molaaskii dib baa refinery inta loogu sameeyaa sokor yar ta laga soo saarinay aasaa molaaskii wixii kalena adduunyo badan laga samaysanaya wallahi inaan bay sheegin yaa halkaas kismaayo ayaa haaman loo rakibtay markabku imaana waa taaganaa warshad kale la geynayaa sokoru ka soo wadi centrifugal ilaa 4 la daba geynaya aasaa sokortii lagala baxaya aasaa haddana molaaskii markii dhageysta waxaan aad uga xunnahay yaa intaa dawladda imaanaya gobolada abuurmay dawlad goboleeda Allah ma lagu magacaabo lagu shaabadeeyay toona waxa weeye magaciya la siiyay laakiin shaabadiya la diiday tan ee shaabadii ma magaciya la siina waxa la yiri agta saar dhiiqada ku jira adiga ramaday wabiga ma yimid ku daado ilaa ay baladweyne ilaa ay waa intii labadii xiniyo Hirshabeelle waa xiniyaashii laba xabo waaye labada xabo waxay dhaxtaa meel beerlo tii kalena jawhar dhaxtaa inta u dhaxaysa barwaaqadii waaye iyo dadkii aw ilaa saacadaan hadlayna waa qaylinooyaan cadowga iska qaadeen hadda bal ifiiriyahay marka anagu ma dhihi karno dawladdan waa ahmaq maya markii si horena sidaan camal ay ka ahayd wuxuu raadinooyana waa wada u jeednaa hadduu ninku una ay waxaan inta aan ku sabrayno way inta aan anagu aan ninkan aan ku mataqaanaa aan ku qiimeynayno oo aanu leenahay dawladdan waa dhab laakiin haddana waxaan leenahay niyo markii horena waa dhacday markaan u dhacayso waxaan rabnaa inaan niraano baraarug noo boob kuma lihin war kuma lihin niyahow wax nooga sadbadi waa niyahow gobolka kan markaad gacanta qaadaysidood wax u magacaabaysid Puntland waa iyo Jubbaland niyahow Hirshabeellena u magacaw madaxweyne fiican keen mid la keenay waaye shacabka ha doortaan maanta ayaan leeyahay waaba naqaanaaba anaga sheegayna hadaan doono maanta anaga nimanka dhiig galay in loo dhiibaan rabnaa nimanka xawaaleen nimanka dhiig galay in loo dhiibo sembelosha ahaado kan ay qaylinaya xiiqaya hiiraan ana idin tusay inay jawhar dhismayso waa noocii iyo quality-gii weeyaan waliba anigu ka xiiqaya ayaan keeni lahaa waa haddayna maqlayaan dawladdu waxaan leenahay Hirshabeelle waxay u baahan tahay ninkaas
qaylinaya xiiqaya ninkaasi waa ninka haddii madaxweyne laga dhigo aan aaminsanahay inay jawhartii aan aqaanidii u soo noolaanayso waa nin ka gaajoonaya lacagtaas wallahi inuu say dadka u hunguriyeen waayo wajigii uu dhiganaya ayaan arkaynaa dee duxda hadho hadhar baxda hadday doonto laakiin dadkiisii markuu nooleeyo dee waa qasab waa nin dhex socda wey yaa howsha wuu wadaayo wuu kala wadaay ya duxdu waxay ka imaanaysaa tuujiska uu ka tuujinayo webigii buu tuujinayaa wuu rakibayaa waa nin afka furanaya waa nin xuquuqdiisa u dagaalamaya waa nin dowlad walbo timaada alleele u babacdhigaya marka waxaan leenahay hey hirshabeellena waan la hadlaynaa iyo mujtamaca meesha yaacayoo dhan waan u sheegaynaa waxaan leenahay isxoreeya xorriyaddu maaha dagaalan iyo maaha waxa weeye caddaysta annagu madaxweynaan u baahannahay aan annagu dooranayno shacab ahaan puntland ay ka dhacday yaa idinka kuwii haddii laga saaray waxa weeyaan way isu soo sharaxayaan nimankaas baadicadda ha isu soo sharaxo ninka kale inta qabiilba iskeen annagu waxaan rabnaa shacabka inay ugu tuuraan shacabka in